kala jabsan oo kala qaybsantahay arrintaas hadday doonto wadaha dabadiisa ha ahaatee ها شكي igama taagna arrintaas laakiin saad ogtahay xukuumaddan hadda waxay kaga duwan tahay hadda annaka xukuumaddanadii adigoo xukuumadda ka soo horjeeda ayaa waxaa jiray janalo lasoo maro inaad waxaan diidan tahay aad ku sheegiso xataa waxaa jiray shakhsiyaad badan oo annaka naga mid ah oo mudaharaadyo publica ka qayb gala iyagoo xukuumadda jooga in haddana xukuumadda mudaharaad lagaga soo horjeedo aan ka qayb galno waaya aad u mahadsan tahay waxaan warar igu soo gaarayaan in dowladda maraykanka haatan xilka haysa ay shukaansi siyaasadeed kula jirto puntland iyo somaliland arrimo socdo badda cas ku saabsan oo istaraatiijig oo dowladda maraykanku ay u aragto arrimahaas maxaad kala socotaa oo xoogaad ka haysaa waagaad idinku xilka joogteense arrimahan oo kale ma idin soo mareen mise waa arrin kugu cusub kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan waraysigan waxaynu la yeelan doonaa xamse warfa oo siyaasi maraykan ah islamar ahaantaasna xoogaal u ah xaaladdu meesha ay marayso su-aalo waaweyn oo bulshada soomaaliyed ka dhex guuxaya ayaynu wax ka weydiin doonaa iyo weerarka trump uu soo qaaday ee soomaalida iyo soomaaliya ka dhan xaaladda hadda soomaaliya maanta ay ku jirto iyo trump oo la sheegay in aan la qiyaasi karin intii labada uu qaadanayo iyo weliba dowladdiisa oo la sheegaya in ay haatan shukaansi kula jirto waa sida hadalka loo dhigaya siyaasadeed somaliland iyo puntland maxaa laga filan karaa qeybaha dambe ayaynu ugu tegi doonaa xamse warfa waxaynu ognahay in uu shaqooyin waaweyn uu kasoo qabtay gobolka islamar ahaantaasna uu ka mid yahay siyaasiyiinta dhalinyarada ah ee aadka markaas soomaalidu ay u taqaano maraykankana loogaga yaqaano in badana la socda aqalka cad sida sausageka loo sameeyo maxaynu oola jeednaa dib ayaynu oga imaan doonaa waxaynu kale oo xusid mudan daawadayaal xilli ice uu kusoo sii daayey donald trump gobolka soomaalida ay u degtay ee minnesota isla mar ahaantaasna dhalinyaro soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed masuq lagu helay oo uu markaas habeen iyo maalin uu soomaalida bar tilmaameedsanayo inuu fursad ugu helay uu markaas soomaalidana ku wiiqo isla mar ahaantaasna tim walls oo ah guddoomiyaha gobolka uu weerar uu ku hayo arrintaasu maxay daaran tahay ma waxaa jirta arrin soomaalida ka weyn oo aan weli soo shaac bixinin oo la xidhiidha midtime electionka oo sanadka soo socda 2026 dhabayaaqadiisa oo loo gogol xaalayaa mise qaylada orgiga ka weyn xamse sharaf iyo karaama ayay tahay waqtiga qaaliga inaan siisay daawadayaal taariikhdu waa 22 bisha 12 sanadka 2025 halkani waa Brit Somali TV xamse soo dhow cabdi xafiid aad baad u mahadsan tahay adiga iyo baahda Brit Somali TV ba MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kan iskaarak MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaada haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada xamse waxaad ahayd mas-uulkii soomaaliyeed ee dowladdii tagtay ee dimuqraadka ee biden uu hogaaminayey mas-uulkii ugu sarreeyey waxaadna aad ula socotaa sida aqalka cadu u shaqeeyo sausageka see u samaysaa cabdi xafiid waad mahadsan tahay kolley xukuumad walba way leedahay maaragtay qaab ay ku hawlgasho oo laga yaabo inay iyaka si khaasa u tahay laakiin sida guud saad ogtahay maraykanku wuxuu sanadkan hadda inoo soo gelayaa sana jirsanaya 250 sano intii gobonimada iyo xornimadiisa uu helay 250 ka sano waxaa jira nidaamyo joogto oo madaxweyne ka madaxweyne khasab ku ah oo sharcigu maaragtay iyo nidaamka dawligu uu mar walba jaangooynayo oo maaragtay nidaam iyo system u ah marka kolley waxaan dhihi karaa wax badan oo mar walba khasab ah oo sideedii u taagan baa jira oo qaabka ay u hawlgasho xukuumad walba calaamo badan oo hadda ii muuqdo oo aan garanayo habkay ku soo askumeen ama ku soo baxeen iyo qaabkay maaragtay isku bedeli karto iyaduna waa jirtaa marka waan guda gelinaa insha allah
bal haddii aad guda gasho halkaa ka ambaqaadir waa maxay calaamadaha kuu muuqda haatan inta aynanu imaan IC howlgallada ay wadaan iyo cabsida soomaalida soo food saartay horta midda ugu horeysa runtii waxa weeyaan xukuumad kasta markii ay xukunka la wareegto waxaa jira dad badan oo saameyn ku leh oo go'aanka saacad walba la gaarayo maalin walba la gaarayo madaxweynuhu subaxii markuu yimaado waxaa la siiyaa White House briefing baa la siiyaa ku saabsan xagga amniga ku saabsan xagga arrimaha dibadda xagga gudaha dadka briefingkaas wuxuu ka imanayaa wasaaradaha kala duwan la taliyaasha kala duwan maaragtay qayb sir qarsoodi oo ah madaxweynaha bas iyo uu ogaan karo qaybna waa qayb dadka maaragtay ka agdhow oo unclassified oo maaragtay madaxweynaha kaliya aan ku ekeen inta badan waxaa dhacda xukuumadda ama madaxweynaha go'aan uu gaaray oo la aaminsanaa inuu go'aan fiican yahay oo waxaad arkaysa laga yaaba isla maalin gudaheed ama isla isbuuc gudaheed ama isla bil gudaheed in looga daba tago la bedelo marka waxaa ii muuqda in laisku hardinayo dadka ku agwareegsan xukuumadda madaxweynuhu inay isku hardinayaan tallaabooyinkay ficiladu qaadi lahaa marka waxaa ii muuqata in dhinac ka mid ah dhinacyada talada iyo powerka maaragtay powerka madaxweynaha ku agwareegsan qayb ka mid ah inuu miisaanku xaggooda u badan yahay oo hadda riixayaan dhacdooyinkan aynu aragno ku saabsan arrimaha ICE arrimaha maaragtay waddanka Soomaaliya Afrika istiraatiijiyadii Mareykanka ee amniga ee la soo saaray isbuucii hadda kii ka horeeyay sameyntiisa waxaa ka dhex muuqda faraad akhrin karto inay dadkan isku hardinaya xukuumadda ka wada midka qayb ka mid ah inay go'aamada iyagu ay ka yimaadeen oo riixayaan marka taa macnaheedu ma aha inay toodun mar walba shaqeynayso marmar waxaa jirta tiimkii laga yaaba in taladoodii aan la qaadan inay soo rogaal celiyaan oo dhahaan dee talaabadan waan arkayna inay noo horseediso cillada hor leh marka hadda ha lagu dayo talaabadan kale marka waxaa lagama maarmaan ah in la qiimeeyo go'aan kastoo la gaaraa inaan loo malaynin uun dhammaan madaxweynaha iyo dadka ka agdhow oo dhan inay isla qaateen laga yaaba qayb ka mid ah dadka ka agdhow inay go'aankaas riixeen go'aan kastana mar walba la bedeli karaa go'aan aan la bedeli karin ma jiro waayahay madaxweynahanu waxaa la leeyahay madaxweynayaashii hore taariikhda dhow Mareykanka soo maray wuxuu kaga duwan yahay lama qiimeyn karo waa nin aan la qiyaasi karinin unpredictable waxay afka qalaad ay ku yiraahdaan aan la qiyaasi karin tilaabada uu qaadayo haddana maskaxdiisii lagu hardamaya saad sheegtay oo fikrado kala duwan ay ku tartamayaan qolo walba inay ajandaheedu u meel maro khatar intee leegayay arrintaasu leedahay haddii asagii maskaxdiisii saas ay u shaqaynayso hadalla aan madaxweyne loogaga baranin gaf ku ah ummado erayo wararka dadka dhalinyarada suuqa ay ku hadlaan bal dhalinyarada in badan ay ka xishooto uu ku hadlo maxaa laga filan karaa baa isleeda ninka saas runtii waxaa laga filan karaa waa run oo horta way jirtaa in madaxweynaha uu qaabo badan oo uga duwan yahay madaxweynayaashii hore wax badan oo la xeerin jiray oo hadda una madaxweynahan jooga xukuumaddan inay xeerininin inay jirto laakiin weli runtii waxaa jira haddii waxaan anugu aaminsanahay cilladda ugu weyne ma aha uun hadalka ka soo baxaya iyo filanwaaga maaragtay waxa ka iman karaan lasii qiyaasi karin maaha cilladda ka daran waxa weeyaan waxaa soo socota doorashadii 2026 marka waxaa jira waxaa isku milmay siyaasaddii iyo xukuumaddii waagii hore waxaa dhici jirtay siyaasadda waa ka mamnuucneed in xukuumadda dadka ku jira inay siyaasadda waddanka ay qayb ka noqdaan waa inuu labada arrimood ay kala qeexan yihiin waxaa jira hadda Tim Walz oo ogtahay inuu maaragtay gudoomiyaha gobolka oo personalina saaxiib maaragtay iyo xiriir wanaagsan naga dhexeeyo tiimkiisana aan kamid ahaa xukuumaddiisii xukuumaddiisii kamid keliya maadan hayna qofkii Soomaaliya ugu sarreeyay baad ahayd dhinacaas marka la eego laftigeeda wax runtii xilkii ugu sarreeyay qof Afrikaan inuu ii magacaabay 2019 laakiin markuu doorashada labaad galay ima suurtagelin inaan qayb ka qaato sababtoo ah waxaa ii diidayay xeerka isku dhafidda ama isdhexgalka siyaasadda iyo in xukuumadda qofku markuu xukuumadda ku jiro wuxuu u adeegaa dhammaan bulshadoo dhan sida saxda ee sharciga ah
hadda marka waxaa muuqata madaxweynuhu xataa markuu khudbadaha akhrinayo khudbada ku habboonaa dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka ayuu wuxuu jeedinayaa isagoo xilkii xukuumadda ee madaxweynimada ku hadlaya marka horta isku dhexgalkaas waxaa qayb weyn ee ka qaadatay in tusaale ahaan dadka soomaalida ah ay noqdaan kawaanka hadda dadka saaran sida 2024 saad xasuusato waxay ahaayeen dadka ka yimid waddanka Haiti ama Haitian refugeeska immigrantka maaragtay ka yimid waddanka Haiti oo la yidhi ayday cunaan bisadahay cunaan maxaa hadda marka electionkaasi uu dhamaaday waa lagu guuleystay maxaa hadda soo galay doorashadii kala hadda socota oo bilowgeedii lagu jiraa 2026 marka waxaad moodaa dhowrkii biloodba in qolo kawaanka saaran tahay marka waxaan isleeyahay filan waaga wax ka suurtagelayaan la filan karin iyo doorashada oo ah doorashooyinkii ugu miisaanka cuslaa waxa loo yaqaano midterms maaragtay oo ah doorashada madaxweynaha la socota midaan ahayn 2 sano u dhaxaysa ah waxay keenaysaa isbedel baarlamaanka hadduu isbedelana madaxweynaha uma suurtagelaysa inuu budgetku doonayo uu approve garaysto waxaa laga yaabaa in maaragtay saameyn ay ku yeelato haddii lagala wareego baarlamaanka saameyn waaweyn bay ku yeelanaysaa 2 sano dambe wax weyn oo madaxweynuhu qaban kara ma jirto marka si taa looga hortago wax kasta oo aan horey u dhici jirin ayaa laga yaabaa inay hadda dhacaan oo ka mid tahay in la bartilmaameedsado dad citizen ah dad muwaadiniin ah dad waddanka canshuur bixiyaal ah oo wanaag uu soo siyaadinayay sababtoo ah in la cabsi geliyo si qofka marka uu qutliyoonigiisa iyo noloshiisa iyo amnigiisa cabsi u gasho way ku adkaanaysaa qofkaasi doorashada dambe oo ololeynteeda iyo waxda inuu qayb ka qaato marka horta qabjabin iyo jabin inay horta noqoto midda ugu horeysa marka tii haddii la sii taraaraxdo oo meelo adag gasho waxay saameyn dhaba ku leedahay waddanka dadka soomaalida hadda runtii kawaanka aad u saaran laakiin soomaalida keliya maaha dad badan oo kale waxaa jira saad ka war hayso shalay hadda waxaan arkay maaragtay oo axad ahayd dad ka yimid waddanka Cuba oo iyagoo la qabanayo ice St Paul magaalada St Paul ee gobolka Minnesota baabuurkii ay jiireen niman ice ah xabad mid ka mid ah isticmaalay marka arrintu waxaad moodaa inay faraha ka sii bixiso xagga amniga xagga maaragtay qasidda siyaasadeed oo xeendaabkii lagu yaqaanay aad u soo gudubtay waa gartay waxaan rabaa inaan soomaalida u soo jeesto balse waxaan rabaa inaan ka hormariyo wax yar waxaana noo soo socda dowladdan iyo arrinta badda cas somaliland iyo puntland iyo arrimo ku saabsan oo aad xasaasi ah daawadayaal halkaas noogu yarahaya balse intaa ka hor Tim Walz oo adigu waa la soo shaqaysay ahna gudoomiyaha gobolka shiishka aqalka cad ayaa saaran ayaa la leeyahay oo waxaa la rabaa in gobolka laga dhigo Republican laga dhigo midtime electionka soo socda bisha November 2026 taas oo Donald Trump muhiimad weyn u leh haddii labada aqal midkood lumiya ama labadaba uu lumiyana saa sheegtay wuxuu qaban karaa aysan jirinin oo gacmaha uu ka xiran yahay Tim Walz markaynu eegno shaqsi ahaan Soomaalidu asagana abaal bay ku leedahay isaguna abaal weyn buu ku leeyahay qofkii ugu dhowaa ee saaxiibka la ah welina saaxiibka la ayaa tahay markaad qiimeyn ka bixisid waa qof noocee ah runtii Tim Walz soo dadka qaarkood waxa laga yaabaa sidan u aqoonin horta waa nin baarlamaanka Mareykanka 12 sano ku jiray laga soo dooran jiray xaafad Republican-ku u badan yihiin isagoo dimuqraadi ah ayaa laga soo dooran jiray xaafad Republican-ku u badan yihiin waxaa la oran karaa berigii 2006 markuu soo galay siyaasadda nin wuxuu ahaa siyaasadiisu siyaasadda bartamaha ama xagga midigta ee xisbiga jamhuuriga u yara janjeera laakiin mar walba dimuqraadi ah macalin buu ahaa maaragtay wuxuu ahaa nin runtii luqadda ingiriiska iyo waxaan la yiraahdo qofkii inuu yahay qof internationalism maaragtay adduunka oo dhan fahansan oo fahanka adduunka iyo si iskugu xiran yahay iyo saan loo kala maarminin aad u fahansan buu ahaa 2016 dhamaadkeedii markaan aniga isbaranay waxyaabihii ku dhiirigeliyey inuu madaxweyne inuu Congress-ka iskaga baxo oo uu gobolka Minnesota inuu governor ku noqdo sababihii ugu waaweyn waxa ka ahaa doorashadii la doortay maxaa la yiraahdaa Donald Trump loo doortay madaxweynaha marka waxaad moodaa caqabadihii ku dhiirigeliyey inuu gobolka hoggaan u noqdo madaxweynihii ayaa haddana madaxweyne noqday marka runtii waa shakhsi aad iyo aad maaragtay hoggaan walba kolley 100% ma aha cilada waa leeyahay oo lama oran karo hoggaan baa dhammaystiran 100% laakiin runtii nin dun fiican
dadka Soomaaliyeedna Cabdi Xafiid oo anigoo runtii aan ka wadanin xiriirkayga shakhsiyeed iyo xukuumaddiisa la soo shaqeeyay waxaad publicly adiga laftaadu baari kartaa in furfurnaanshaha dadka Soomaaliyeed inay gobolka dhex galaan maaha inay wax dheeraad ah raadinayaan waxay xaq u lahaayeen iyagoo muwaadiniin ah iyagoo dad residents u ah gobolka Minnesota wasaaradihii ka xidhnaan jiray oo in aqoonba laga yaabaa badan iyo access u lahayn ayaa laga bilaabo 2019 u bilowday 2019 waxaa taas sabab u ahaa hogaankii ka bilaabataa hogaanku hadduu yahay mid u furfuran in gobolka inaad xasuusta laga yaaba astaantii uu ku soo baxay ku ololeenay 2018 uu doorashada ku helay waxay ahayd hal Minnesota oo loo dhan yahay oo qof kasta uu iska dhex arki karo dhibkeeda iyo dheefteeda taasuu ku guuleystay marka waxay ku tusaysaa qofku uu yahay waxa laga fiirinayaa go'aamadu gaaro noocay yihiin ma aha kaliya shakhsigu fiican baa laga yaabaa inuuna go'aamo fiicneen marka runtii nin geesi ah go'aamo adag qaata jecel inuu dadku maaragtay wada guuleysto dadka u furfuran runtii la oran karo waa hoggaankiisu dallad la wada harsado inay dadku iska wada dhex arkaan nin aaminsan weeye cillada waa leeyahay meelo badan oo laga yaabo in maaragtay dee way adag tahay qofku markuu guddoomiye gobol dhan uu yahay gobol 6 milyan oo qof ay ku nooshahay ku dhawaad 6 milyan oo qof 6 milyan oo qof ma wada qancin kartid marka dad badan oo wax ka tabanaya waad helaysaa marar badan laakiin qof kaga habboon maanta oo weliba xaaladahan lagu jiro ka saari karaa jiiradan xun ee meesha ay gashay ka saari karaa waxaan aaminsanahay inuu guddoomiyaha gobolka hadda jooga Tim Walz inuu yahay waayahay waxay dadka qaar leeyihiin haddaan khaldanahayn isax aflagaadadan wuxuushnimada ah xaddhaafka ee xargagoosatay Donald Trump dadka Soomaaliyeed iyo Soomaaliba uu kula kacayo Soomaalina dib baan uga imaan doonaaye Soomaalidu waa dhabbihii la sii marayay ama waa buundadii loo sii marayay Tim Walz Soomaalidu ma ogtahay arrintaas ma ku baraarugsanta runtii horta taasi waa biyo kama dhabcaan sababtoo ah gobolka Minnesota in qof Republican ah ama jamhuuri ah inuu ku guuleysto xil state-ko dhan ah ama mid guddoomiye ha noqoto ama mid secretary of state ha noqoto ama mid 20 sano ka hor baa ugu dambeysay ku dhawaad 20 sano ka hor baa ugu dambeysay marka waxay isleeyihiin fursaddan waa fursaddii ugu qaalisneed marka wax kasta oo dhaawici kara guddoomiyaha image-kiisa haleyn kara in la adeegsado ayaad moodaa in ay culays ka saarayaan xisbiga jamhuurigu qayb weyn oo qaybta kamid waxa weeyaan dadka Soomaalida ah khaladaad badan oo shakhsiyaad Soomaaliyeed ka dhacay ma aha bulshada Soomaaliyeed oo dhan ma aha shakhsiyaad Soomaali ah oo dambiye galay qirtay inay dambiye galeen musuqmaasuq lacago khaladaad maaragtay noocaas oo kala crime waxyaabada noocaas oo kala duwan galay waxay keentay in dadkii Soomaaliyeed oo dhan inta lisku si maaragtay dhameystiran iyagoo dhan lisku qabto in la yiraahdo Soomaalidu waa dad xun oo dul xun in la yiraahdo taa marka waxa ugu muhiimsan ee loo socdaa saad sheegtay waxa weeyaan Cabdi Xafiidow doorashada 2026 ee guddoomiyaha gobolka nasiib daro ma oran karo dadka Soomaalidu way ku wada baraarugsan yihiin waa meelaha aaminsanahay doorar badan adiga iyo maaragtay bahda Bridge Somali TV iyo media-yooyinkeena kale inay qayb weyn ka qaadan karaan in dadka la wacyi geliyo dadku iyaga dooq u leh oo waxay oran karaan anagu ma rabna guddoomiyaha gobolka waxaan rabnaa inaanu meel kale marno laakiin waa in lagu calool adeegi karo oo hadda waxaa jira walaalo Soomaaliyeed oo doorashadii 2024 markay socotay anagu Donald Trump aan rabnaa Soomaalida isaga maslaxa u ah anaka ka keenina wax fiican marka waa dib ma jiro inay og yihiin oo saameynta ay yeelan karto oo muhiim ah laakiin haddii markii laga baxay natiijadii wanaagsaneed ee nu ka suginay inay keenaan haddii dhici weeday laba qaybood bay noqonayaan qayb qiratay oo tiri alaalay talada waa naga hoos baxday oo ninkiisaan moodinay hawshu ma noqonin iyo qayb aan shanqarba wili laga haynin oo runtii aamusan marka waxa muhiim ah qofku wuxuu go'aan ku qaadanayo inuu og yahay natiijadeeda oo gadaalun mar walba aan la dhihin wallahi maanan moodinin wax badan oo hadda aad ogaan karto oo ka caawinaya go'aanka saxda inaad gaadhaa jirta marka
waan jeclaan lahaa runtii inaynu baraarug badan aynu abuurno oo ah xukuumadda Tim Walz iyo musharaxiinta kale ay sharaxaya xisbiga jamhuuriga ah qofku isagoon dhinacna u eexanaynin dantiisa kaliya eega inuu isbarbar dhigo isagoo laabtiisa heshiis la ah hadduu warbixin saxa helay inuu markaas go'aan saxa u gaaro laakiin haddaynu ku jirno maanan ogeyn mar xeer iyo fandhaal kala dhacay oo adduunku uu kharimay oo dhaawac iyo damage kaa soo gaaray uu aad u weyn yahay waxaa weeyaan ila meerayso ayaynu ku jirinaa وحاجات إلى ما ليس نفتيجا دبا نفتيجا كحسي دونا ناودي لو نسولو إن مركلة حمزة ورفاع يعني برنامج كم كورة يستلنا حوار وعشقوين كوجوس استلنا قبل كسو قبتي إسلام راحان تاسنا هذوك تيم كي هراء من دولة دي هراء حلك لا قاعد جو بايدن إنه قادر يسوي شقي نذكر أن يرد الصومالية السياسة ده آدي عن كوجا مرشدة وحتى كأولا وكمدي هي وحينو oo imaanayna haatan Soomaalidu maxay qaban kartaa waxaan rabnaa Ilhaan Cumar oo hadlayso iyada lafteeda la weerarayo ay leedahay Soomaalidu waa dad resilient adkaysi badan karti badan canshuur bixiya shaqaysta qof iyo laba iyo xaynta yarta waxay sameeyaan laba qaban karo just to echo your words hadadan allahayd maxay Soomaalidu qaban kartaa islaam runtii Soomaalidu waa dad aad iyo aad maaragtay u firfircoon iyadoon ammaanaynan ahayn maaragtay runtii ka firfircoon bulshooyin badan oo laga yaaba xilliga Mareykanka joogeen xilli ka sii badan inay joogeen waxaa muhiim ah in culaysku meeshuu jira la saaro oo dadku maaragtay ay doorarka kala duwan bannaan ee shaqada u baahan in lagu mashquulo waxaan runtii shakhsiyan ku dhiirigelin lahaa horta kow marka miidyada lala hadlayo inay dadku ku baraarugsan yihiin inay waxay ka hadlayaan ay garanayaan inay iyagu ku habboon yihiin inay miidyada la hadlaan sababtoo ah dadaalka badan baa laga yaaba marka qaarkood inuu dhibaato keeno qof laga yaaba inuu u xamaasadaysan yahay dhaawaca iyo dhibka dadka Soomaaliyeed soo gaaraya ayaa laga yaaba inuu bixiyo waraysi dhaawacii laga yaaba inuu sii laba jibaaro marka waxaa laga maarmaana in runtii aad looga fiirsado qof walba uu isweydiiyo muxuu yahay doorka aniga iga bannaan waa kow laba saan sheegay xukuumadda waa xukuumad ballaaran isku dhex jirta marka waxaa laga maarmaan ah in la engage gareeyo qaybo ka mid ah xukuumadda oo madaxweynaha maaragtay wax ka dhegeysan kara laga yaabo taladii hore inaan laga dhegeysanin shakhsiyaad badan baan xoogaal u ahay oo runtii aan raali ka ahayn waxa Soomaalida lagu sameeyo oo xukuumadda ka mid ah marka taasi waa mid wixii sharciga ku saabsan dadka dhibaatadu soo gaarayso in maaragtay loo ololeeyo dad badan waxaa jira iyagoo si sax ah waddanka ku yimid sharci dalbaday sharcigii hore la siiyey hadda guryihii ka tegey aan shaqaysanin dadkaas in loo gurmado oo maaragtay wixii sharciga legal ku saabsan wixii ku saabsan cunto iyo nolosha iyo maaragtay nolol maalmeedka abaabul bay u baahan tahay abaabul fiican baa arrintaa ka socotaa muhiim ah dadku inay hal qof inay hadaan laakiin waxaa muhiim ah inay wax wada wanaag oo kala duwan iyo qaabab kala duwan dadku inay ku hawlgalaan waxaan kaloo runtii oran lahaa dad badan oo wanaaga bulshada ayaa ka badan inta xumaanta bulshada ka dhex timid xumaanta sameynaysa inta wanaaga sameynaysa kun jeer ka badan laakiin dhaqan waxaynu leenahay dib isku dhig ah oo runtii inaan jeclayn inaan badankeen aan aad maaragtay bannaanka u nimaadno hadda way ka duwan tahay waxaan aaminsanahay dadku qof kasta inuu waxtarkiisa iyo wanaagiisa dadka kale ka agdhown uu maaragtay uu bannaanka keeno si loo arko dadka Soomaaliyeed waxtarka iyo wanaagga dadka u leeyihiin halkan iyo dibaddaba waxaan weliba si gaar ah aaminsanahay in lagu faantamo dadka Soomaalida Mareykanku inay buundo u yihiin Mareykanka iyo geeska Afrika iyo Afrikaba oo danaha Mareykanka ee Mareykanku Afrika dhulka ma rabo strategic interest kale uu leeyahay waa in kuwaas iyo kuwa inaka aynu leenahay oo dadka Soomaaliyeed ama dadka Afrika ay leeyihiin identity-gaaga qof markaad Ilaahay ku abuuray aduu maadan dooran meeshaad ku abuurmiso qaabkaad u imanayso Ilaahay baa ku abuuray Ilaahay hadduu qof sharaf loo Soomaaliyeed Afrikaana Muslim ah ka dhigay madow haddana Mareykan haddaad tahay muwaadin Mareykana inaad kala doorataa khasab ma hana dhegeysan dadka isku day inaad kala doorato ku dhaho ama Soomaali bes oo how
ama muslim bes ohow ama maraykan bes ohow intaaba waad isla ahaan kartaa quruxda iyo wanaagga leedahay inaad intaas la ahaataana fiican marka dhallinyaradeennu inay fariintaas maqlaan arkaan looyarada dhakhaatiirta caafimaadka magaranaysaayey dadka creative-ka ah documentaries-ka sameynaya weriyaasha aduu dee ma soo koobi karo fiilalka kala duwan runtii mar ay ka muhiimsan tahay sanadkan hadda inoo bilanaya in arrinta culayska la saaro ma jirto marka waxaan ran lahaa taas inaynu dhammaanteen qayb ka qaadanno legal fund oo lagu ololeynayo maaragtay in dadka lagu difaacana la sameeyo xukuumaddana waa lagama maarmaan in la engage gareeyo oo si saxa loo engage gareeyo oo aan looga tegin wayna cayda un keliya inaan looga tegin qaybaheeda diyaarka waa inay xukuumaddana badbaadiso dadkana ay badbaadiso sababta madaxweynaha maraykanku waa madaxweynaha maraykanka hadda ilaa January 2029 saddex sano iyo bil iyo xogaaba u haray xukuumaddani markaa hadday saddex sano soo socda joogto bannaan mudaharaad keliya iyo cay xukuumaddan lagagama adkaan karo xukuumadda waxay u baahan tahay in la engage gareeyo maslaxada iyo danta dadka Soomaaliyeed dadka Afrikaanka ah ee Maraykanka ah iyo bundada aan sheegay isku xirka in la sameeyaa dad bay u baahan tahay waayahay su'aal dadkaas ma haysan Soomaalidiina haatan Maraykanka joogto kow maadaama aad tiri xukuumaddu way ku kala qaybsan tahay haddaan qalad ku fahmay isax sida hadda Soomaalida loola dhaqmayo qaar waxaa jira aan raalli ka ahayn iyo qaar kale ma dhihi karna xukuumaddu si maaragtay arrimihii markaas socday ee Falastiin ay ugu weyneed oo kale qof walba uu dareenkiisii uu muujinayo marka tan haddii xataa ayna dadku diyaar u ahayn inay muujiyaan waxaa xataa la abuuri karaa dad laga yaaba hadda inayna diyaar u ahayn inay difaacaan dadka in la fahansiiyo Soomaalidu inay tahay dad bulshadan iyo waddankan waxtar u leh haddii Minnesota Britole oo talaada ah dadka Soomaalidu ay dhahaan hal maalin ma shaqo tagin qof walba gurigaaga joog halka maalin kali ah dhaqaalaha gobolka Minnesota culays aad u weyn oo sanadka soo socdo dhan una ka kaban karin baa ku dhacaya marka waa lagama maarmaan in ay dareenkaas maaragtay la abuuro dadka marka su'aashaada kale hadaan ka jawaabo habeen dhaweyd shir baan qabanay oo anigu marti geliyay dad ilaa 7 oo aqoonyahan nooc walba leh dad militariga Maraykanka Soomaali oo militariga Maraykanka 10 sano ka soo ahaa ciidamada Maraykanka carruurtooda hadda diidan in Soomaalinimo cusurnimo lagu sameeyo ka waddanka naftooda u huray dad looyara ah dad dhakhaatiir ah dad healthcare clinics hadda furay oo maaragtay yaabisid dad center community-ga 70 saasaan isku nimid fikrada iyo talooyin baan isku keenay waanu maaragtay meel fiican bay noo marisaa bilaha iyo wiiga soo socdana waxaan rajeynaynaa insha Allah inaanu anakoo sawaxan iyo dhawaaqan la maqlinin inaan maaragtay engage gareyno xukuumadda hadda joogtay White House-ka waana wiiga soo socda bisha January dhaqdhaqaaqyo bilaabmi doona insha Allah waayahay haddii aynu intaa ka soo tagno Xamzo waxaa waraysiyo kala duwan laga yeeshay professor aad iyo aad caan u ah Axmed Ismaaciil Samantar oo nin oday oo ikhyaar ah waraysiga laga yeeshay u dambeeyey ma daawatay mid hore waxaa jira Soomaalidu ay aad uga carootay haddana mid kale u dambeeyey ayaa jiray oo xilliga barnaamijkan aan duubeyna maalin ka hor lala yeeshay halkan ayaan falanqeyn ka samaynay in badan oo ka mid ah Soomaalida inuu u hiilinayay ayaa ka muuqatay fikirkaas adigu ku waafaqsanta horta runtii shakhsiyaadka qof walba in sidiisa uu fikirkiisa dhiibtaa waa ma xuma laakiin runtii professor Axmed oo runtii shakhsi ahaan qadarin inaga wada mudan qof kastoo Soomaaliya qadarin inaga mudan haddana uu dhaamay waraysigii hore kana ka wanaagsanaa oo waan dhageystay laakiin haddana runtii meelo aad looga xumaado maaragtay professorku isku lifaaqay waxyaabaan shuqul isku lahayn oo laga yaabo inuu cabirkii siyaasadaha geeska Afrika uu sameyn jiray uu ku cabirayo siyaasadda Maraykanka iyo gobolka Minnesota ayaa ii yara muuqatay kow dadka Minnesota culture gaar ay leeyihiin ma jirto waddankan aanu nimid waa waddan individual maaragtay individualism ku base garaysan marka in la yiraahdo dadkii Soomaaliyeed meel dad iswada xagxagto midba mid kale ku dhagan yahay oo
dalkeena ciladahaas waa ka jiraan meelo badan oo ka mid ah maraykanka laakiin qof kasta iskiis buu maaragtay dadaal u sameeyey iskiis buu soo baxay isagoo taageero ka helaya bulshadiisa iyo dadkiisa marka fikir wanaagsan inagama bixinayso in la yiraahdo dadka Soomaaliyeed waa dad maaragtay wili dhaqankii qof walba qof ku dhagan yahay isxaganayaan qof walba wuxuu dhici karo uu dhacayo dadka Soomaaliyeed 0.003 xataa ma dhana dadka hadda waxyaabaha musuqmaasuqa ku jira marka 100,000 ee Soomaalida gobolka kuna loo eego haddaba waxay cadaalad darro ku tahay 99.8 ama 7 maaragtay Soomaaliyeed oo ku mashquulsan carruurtooda maalmo dhaweed wareysiyaan WCCO-ga localkan siinayay telefishinada qaybo ka mid ah looma eedeyn karo dad ku mashquulsan carruurtooda si u korin lahaayeen siday ganacsi u abuuran lahaayeen siday gobolkan ay maaragtay wanaag iyo waxtar ugu ziyaadin lahaayeen iyagoo toodan isku ziyaadinaya inta la isku wada lafaaqa la yiraahdo dhaqan xun bay leeyihiin anigu runtii 65 ilaa 73 wadan ayaan kala shaqeynay arrinta la dagaalanka musuqmaasuqa markii aan xukuumadii Biden aan joognay waxyaabihii madaxweynuhu sida gaarka ah uu igu magacaabay senior advisor-ka talada bay kamid ahayd oo ah in commitment laga helo 73 wadan 65 kamidana ay soo gudbiyeen qaabkay musuqmaasuqa ula dagaalamayaan corruptionka iyo faraarka ula dagaalamayaan wadan kasta ciladahan uu haystaa gobol walba uu haystaa marka in la isku lifaaqo culture-ka ama habdhaqanka bulshadan iyo arrimaha musuqmaasuqa oo ku saabsan dad naftooda halaagaya dadkooda sumcad dilaya gobolkii waxtarka u soo ziyaadiyayna dhibaato u ziyaadinaya in dadkoo dhan lagu lifaaqo fikir ah baa weli iga yara muuqday oo aan aaminsanahay inuu fikirka khaladka uu yahay taa macnaheedu maaha Soomaalidu khaladaad iska saxaan ma laha bulsho walba waxay leedahay khaladaad badan oo ku dhex jira oo u baahan in la iska saxo tusaale ahaan anigu maalin dhaweedna waan sheegay waan jeclaan lahaa in wacyigelinta doorka loogu talagalay hay'adaha samafalka ah inuuna ganacsi shakhsi ahaan uu yahay wax bulshadu ay iska leedahay oo shakhsi uusan lahayn oo kale wacyigelinta in la badiyo in dadka bulshada guud la gaarsiiyo ka xumaanshaha laga xun yahay raaliga laga ahayn in dadku musuqmaasuq ay galaan waa wax Soomaalidu ay mas'uuliyad dheeraad iska saari karto laakiin lama oran karo dadka Soomaaliyeed baa dun xun oo dun xumadoodii baa keentay ciladan hadallada professorkana runtii meelaha saas oo aan rabin inaan gudaha aad ugu sii galo ayaan ka dhadhaminayo oo aan aad uga xumaaday maya cabdi xafiid arrintan horta waxaan u maleynayaa waxay salka ku yarahaysaa arrintii dual track la dhihi jiray ee berigii hore jirtay markii dambana ay maaragtay dowladda Maraykanku ay hoos u dhigtay marna ma oran karno way ka wada tagtay laakiin ay aad hoos ugu dhigtay iyadoo aad loo xoojinayo in la helo dowlad federaal ah oo si dhab u shaqeysa oo cadaalad dhexdeeda dadkeeda iyo wadankeeda ka samaysa taladana la wadaago goboladoo dhan ay talada wadaagayaan arrinta Somaliland si unique ah waa jirtay oo anaka laftanada xilligan joognay arrimaha hadda xukuumadan ay wato wali waa arrimihii anaku xilligan ayaan wadno ahayd saldhigga berbera arrinta hadda ku soo cusboonaatay yani ma soo cusboonaanin sawaxanku sii batay ee ah Red Sea-ga waxay sii xoojinaysaa dhaqdhaqaaqyadii socday oo berigii caqabada badan arrimihii dagaalkii laascaanood iyo ay keeneen in hakad la geliyey inay xukuumadani maaragtay dib u yara bilbilowday waa jirtaa runtii in uu soo xoogeysanayo marka xilliganagii mar walba dood way taagneed ah ma dowladda federaalka bes lala dhiilgarayaa mise qolo walba sphere of influence qolo walba meesha ay culeyska influenceka qolada meesha ku leh markaan qolo wada waxaan ka wada maamul goboleedyo ayaan toos ula dhaqanaa luqadaydu waa waqooyi conference ku jirta marka marka qaarkood waxaa laga yaabaa inay dadku kelmadaha maaragtay kaftanka markaan ka tago marka waxaa leedahay jul tragam idil qaado jul tragam gareeyo dowladda saas ujeeda hadalkaaga dual tragu mar walba waa jiray marka waxaa hoos loo dhigay in la dhiso dowlad federaal ah in la xoojiyo dowladda federaalka ah ee dowladii federaalka tan Xasan Sheekh hadda madaxweyne Xasan Sheekh ugu dambeysay laakiin maadaama hamigii la qabay in ay taasi hirgasho aanan aad u hirgelin baahidii ahayd in
red sea-ga iyo security-ga amniga deegaamadan hadda Puntland oo arrimaha ISIS degada iyo base-ka militariga ee Berbera ee Mareykanka iyo China way isku hayaan interestyo badan oo Mareykanku dhulkan ka leeyahay baa jirta haddii markaa ayna jirin dowlad dadku ku midaysan yahay oo maaragtay toos uga arrimisa dhulkan oo dhan waxaa soo badanaya culayska dhahaya haddii dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada xaggan koonfurta ah iyo Somaliland oo heshiiye wada shaqeynaya aan la helin waxaan ku khasbanaanaynaa in meesha annagu interestigan ay naga jirto in la helo marka nasiib darro waxaasoo dhan waxay salka ku haysaa Cabdixafiid oo markaan si runtaas ku sheegno waa caqabadaha inaga haysta dowlad inoo hana qaada iyo hoggaan inoo hana qaada dalkii Soomaaliya in laga helo ayaa sabab weyn u ah inuu hadda soo xoogeystay codkan dhahaya dual track si full ah loo soo celiyo haddii la soo celiyo sidee buu u egyahay baa islaadahay dual track mara noocee u dhalka waxay ku xiran tahay horta dhowr arrimood mid waxay ku xiran tahay sida ay khilaafaadka dadka madaxda Soomaaliyeed dhexdooda ay u xalistaan haddii xalismi weydo oo iyaga dhexdooda laga yaabo in bilaha soo socda laba dowladood oo isgarab ordaya oo maadaama xilliga hadda haray oo xukuumadda hadda joogta ee federaalka xilligeedii baarlamaankii bisha Abriil ahayd in la doortay in hadda muuqanin qaab lagu dooranayo marnaba haddiina heshiis degdeg ah ayna gaarin waxaa suurtagal ah in laba dowladood oo maaragtay kala duwan oo parallel ah suurtagal ah inay halkaa ka timaado taasi waxay xoojinaysaa markaa in dowladda Mareykanka oo hadda strategic interestigeeda ama national security framework-gii hadda ay ku dhawaaqeen wiigi ka horeeyay Africa oo dhan waxay ku soo koobeen hal page wax ka yar kaasoo ah interestiganaga economic ahaan iyo amni ahaan Africa ka doonina ayaanu maaragtay culayska saarinaa marka wax badan anagu xeerin jirnay oo isku keenid iyo koolkoolin iyo heshiisiin iyo hawlo badan oo dadaal la gelin jiray xukuumaddana energy uma hayso waxaas interestina uma hayso marka taasi waxay keenaysaa in loola dhaqmaa qolo walba koox walba iyo miisaanka ay leedahay iyo interestiga markaa Mareykanku meeshuu ka leeyahay in ay maaragtay culayska saarto taasoo runtii cid kastoo danaynaysa inay aragto Soomaaliya iyo geeska Afrika oo xasiloon oo degan Soomaaliya oo dowlad maaragtay ka hana qaada oo mustaqbalka jiil baa hadda inaga khasaaray jiilka dambe maaragtay badbaadiya haddii aan la helin oo hawshii naga noqoto heestu waa heestii laas qoray heeladu waa heeladii laas qoray miya ahayd iga hoos baxday heesaan ugu jecelahay bay kamid ahaan jirtay hawshii naga noqoto oo 2012 2017 2020 nasiib daro 2026 heeladu waa heela laas qoray naga noqoto oo bahashu meesheeda inoo taagnaato murugo iyo nasiib darro ka weyn oo mustaqbalka dhalinyarada jiilka soo socda gaari karaa ma jiro fursad yar baynu haysanaa arrintaa inaynu ku saxnaan wax kaga bedelnana waayahay waxaan rabaa gabagabadii ayaa ku siqanaynaa xilliga aad dowladda joogteen ee dual track-gan uu jiray istaraatiijiyadda Mareykanka ee iyagu ay markaas gaarka u daneynayeen dalkeena hooyo maxay ahayd Mareykanku runtii wuxuu mar walba daneynayaa waxa weeyaan in caqabad xagga amniga uunan horta Soomaaliya iyo geeska Afrika uga imanin qaabka marka taa loo sameyn karo annagu xukuumaddanadii waxaanu aaminsaneen in geeska Afrika la xasiliyo Soomaaliya la xasiliyo dadaal aad u badan oo marar badan oo hore xataa adiga aynu iswareysanayna aan kaga shanqariyay halkan in la geliyay taas waa midda labaad oo midda dhaqaalaha iyo amniguna isku xiran yahay maraakiibta Mareykanka dhaqaalaha adduunka xuduudaha badahan uu soo marayay geeska Afrika ee badda cas maaragtay inaan la saameyn ku imanin iyo dowlad lala jaan qaadi karo dadkeedana badbaadisa adduunkana badbaadisa in la helo oo adag tii nasiib darro waxaad moodaa in weli amnigu meeshii aynu 2022 inoo marisay inay inoo mariso dadaalada meelaha qaarkood kooban marka laga tago oo ay kamid tahay amniga magaalada Xamar runtii aad u fiicnaaday marka anaku runtii xukuumad ahaan dadaal waxaan gelinay Mareykan ahaan maaragtay xukuumaddii Biden in dowlad adag oo xasiloon ay Soomaaliya ka hana qaado
doorashada dambana inaaban su'aal iyo muranba ka imanin horay bish sanadka ugu horeeya sanadka barka ugu horeeya la sii ogyahayba in doorashada deedkeeda xilligeeda waxeedii lagu heshiiyey inay wada taagan tahay nasiib darro hadda oo 22kii maaragtay 22kii December 2025 aynu joognaa cabdixafiidow oo la rabay in baarlamaanka qaybo ka mid ah la magacaabay la dhaariyey waxaan wada raali ahoo lasoo magacaabo lasoo xulay lasoo doortay deegaamadoodii laga soo xulay xataa road mapka doorashada caawa ma ogin waxaynu ognahay xukuumadda hadda joogta madaxweyne xasan sheekh oo doorasho ku dhawaaqaya oo wiigan weliba doorasho deegaameed ka dhacaya maaragtay gobolka banaadir taasood ogtahay in mucaaradku diiday mucaaradkii oo kismaayo iskugu tegey oo shirar maaragtay digniin 30 maalmood in lagu heshiiyo haddii kale wixii ka dhaca waa la arki doonaa fariina inoo soo diray marka waxa weeyaan jugjug meeshaadi joog waa ciyaartooygu waa isla ciyaartooygii ciyaartu waa isla ciyaartii nasiib darradii Soomaaliya haysatay waa isla nasiib darradii weeye marka waxaan rajeynayaa raxmad ilaahay lagama samray inuu ilaahay faraj inoo furo hoggaan runtii fahmi kara la jaanqaadida adduunku waxa aynu inaga doonayo inakuna aynu ka doonino fahmaya wadankana ka saari kara meertadan aadka u qaabka daran ee hadda maaragtay jiil dhan mustaqbalkoodii ku ciyaartay inaynu sida ugu dhaqsaha badan aynu ilaahay faraj inooga furo ayaan rajeynayaa wagaag xamza warfaa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ah iyo sida aad maskaxdaada ummadda Soomaaliyeed ugu shiishay daawadayaal wax kasta oo Donald Trump oo Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed uu ka yiraahdo inta anagu aanu dadkeena iyo dalkeena islaaxiisa iyo horumarkiisa ka shaqeynayno in la caayo oo tusaale foolxun loo soo qaato oo musafirin caayo oo maqrib madaxdeeda qaar ka mid ah ay caydo oo farta lagu fiiqo tusaalaha xun aynu noqono anagu ba iska qaadi karna cid naga qaadi karto dibadda kaaga imaanaysa ma jirto su'aashu waxay tahay nimankii Kismaayo ku shiray ee dowladda dhexe ma yihiin kuwii Soomaali samanta bixin lahaa mise waa ila meerayso iyo kursiga aan ka qaato iyo anigu aan ku fariisto ama aan sii haysto xamza waa mahadsantahay 100% intaas ayuu daawadayaal barnaamijkeena xafiid aad baad mahadsantahay intaas ayuu barnaamijkeenu ku eegay intaanu kala dib kulmi doono nabadgelyo